وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوى واحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتشد عداوه واسكو سنابه. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين أدبا عدين سلام يا أمد الصوماليات ميل كستو أجوكتان ومركلي برنامج كي من نيمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maleynaa codka xirnaa markii hore walaalayaal dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waa in salaameynaa waxaan ku salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mar kale iyo barnaamijkii wacdiga gelinta umada Soomaaliyeed midnimo ama bulsho midnimo bulsho aad baa idin salaamaya Saciid Jibriil dhammaantiin soo dhawaada dhammaantiin aad baa idin salaamaya walaalayaal habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan وبرنامجكي أنا نوجا برتين أدمر والبيجلة سعتين عن تراجرين إن أمد الصوماليات كبر رجنو أما أجهد الله سيدي أي وده جير الهاي إن شاء الله عاو حي مرتئة وريه الصوماليات وريه عانة تتكبرن كوده وجهي سجرنا يان إن شاء الله وأن مردو إذا تصدونه هدي إلهي راهو صوبة حوجة تتكويريهين وقتنا واسكيري هاي لكن إن شاء الله وحير بنسوين أنت صوب ضنيسان
سودو أدبا كاقادي ولا وكاقادي أنغن أدبا ندين سلام يا دمانتين محمد سودو دمانتين سودو هذا عبد الله أحمد دمانتين سلام يا ولا walaalayaal waxaan leenahay soo dhawaada mar kale iyo mar tobnaad iyo mar boqolaad iyo dhammaantiina waan islaamayaa waa walaashin midnimo iyo mar kale programkii midnimo bulsho waxaan caawa kaga hadlaynaa haddii ilaahay yiraaho gobonnimo waa qaran qarankuna waa gobonnimo because taas inay run tahay waxaad ku garanaysaa qabyaalad meesha ayna dhigtay waddankeenii dhigtay dadkeenii dhigtay dalkeenii dhigtay ayaa u ansar ah marka inay gobonnimadu tahay qaran waa wax run ah meel kasta adduunyada inaad arkaysaan waddan kastoo aad adduunkan arkaysaan waxa uu ku dhisan yahay ama ku qurux badan yahay ama ku calankiisa ku babanayo ama nabadda maxay u taalo waxa weeyaan because waxay haystaan gobonnimo qarankii bay haystaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed insha Allah meel kastoo ay joogaan waxaan ku baraarujinaynaa inaan mugdigii hore aan ku jirnay aan ka baxno in aan mugdigii hore aan ku jirnay ee aan long time hurudnay inaan ka soo kacno haddii ilaahay yiraaho oo sidii daawo nala siiyay ama nala suuxiyay aan iska dhex seexanay waa inaan ka soo kacnaa insha Allah bilmillahi kariim waa inaan xoogga saarnaa sida ummadii Soomaaliyeed ay u baraarug lahaayeen aan mugdiga aan ugu jirnay uga bixi lahayn aan u ogaan lahayn adduunyadu in aynan qabiil ku dhisnayn ee qaran ku dhisan tahay adduunyadu kuma dhisna wax la yiraahdo qabiil waxay ku dhisan tahay qaran qarankuna wuxuu ku dhisan yahay de gobonnimo waa wadan waa dad minti waxa weeyaan dad waxa weeyaan noqday gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ayaa dawlad noqon kara qabiil meesha kuma jiro waa in toolali qabiilka la distrogareeyo oo laga saaro taariikhda Soomaalida because taariikh mugdi ayuu nageliyay 28 years oo noloshii Soomaalida ama waddankayagii ayuu cunay marka Soomaaliyeey waxaan idin ka codsanayaa oo mar walba idin leeyahay oo mar walba idin ku baraarujinayaa oo aan rabin inaan ka daalo oo aan ku codsanayaa yar iyo weynba in loo istaago baraarujinta ummadda Soomaaliyeed mugdiga aan ku jirnay ee bilaaleerka ahna inaan ka baxano haddii ilaahay yiraaho because waxaan ku jirnay mugdi aad u badan oo maxay tahay waqti dheer inuu ku qaatay marka walaalayaal waxaan idin leenahay waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan idinkuna wixii aad u aragtaan waad ii soo qori kartaan maxay dhahday abay video gahe may maqlaysaan abay video gaha isxawaan dhinac buu u jeedaa miya oo how come haye hadda beera haye saas beera miya sida kale waan ku jira hadda iyo markii hore maxay different ma jiro atigna isku mid yihiin aad baan idin salaamaya walaalayaal soo dhawaada maxamed soo dhawo dhammaantiin soo dhawaada waxaan ka hadlaynaa walaalayaal waad u jeedaan waxa weeyaan gobonnimo waa qaranna waa gobonnimo waxaan rabaa inaan caawa waxaan kan marti igu ah anigu programkan sidiisaba waxaan rabnaa aan uga hadlaynaa mar walbaba waa midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa mar walbaba in aan nagala soo qayb qaataan oo aan maxay tahay aan marti gelino wadaniyaasha wariyayaasha abwaanada like maxay tahay dadka bulshada Soomaaliyeed qiimaha iyo qadarinta badan ku leh amaba noo ah de maxay tahay hormuudka like sida last week oo kale to ay ila joogtay haliyadii ummadda Soomaaliyeed saas gees way ma dhahdeen
marka walaalayaal waxaan uga hadlaynaa waxa weeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya inaan midoodaan inaan isku tiirsano inaan insha Allah bilmilahi kareem ka baxno mugdiga aan ku jirnay ee long time ku jirnay aan waqtiga dheer ku jirnay ee ugu qaatay maxay tahay in aanan ogaanba waxa aan ku dhex jirno waqti dheer nagu qaatay waqti dheer waxaan is leenahay insha Allah inaan kulligeen kii abwaan kii maxay tahay gabya kii maxay tahay heesa kii sheekh kii maxay tahay sidaydoo kale ay wadaninimadu isaga dhalatay kulligeen inaan u istaagno mideynta ummadda Soomaaliyeed iyo qarankeena dib u dhiskiisii iyo dalkeena dib u dhiskiisii iyo isu keenida ummadii kala haajirtay oo bad iyo bariba ku kala haajirtay isu keenideeda walaalayaal waa inaan kulligeen ka qayb qaadanaa waana inaan u halganaa sidii wadankeena aan awoowayaasheen ugu soo halgameen waa inaan ugu halgamnaa nabadda wadankeena because nabad la'aan adduunka qolana meel ma gaarto nabad la'aantu nabaduna waa number 1 shayga ugu horeeya oo ummadda Soomaalida iyo ummadda Islaamka iyo ummad kastaaba ay ku baraaraysato meel ku gaarto waxa weeyaan nabadda هذا اوكي ميا هذا اوكي والله walaalayaal soo dhawaada mar kale dhamaantiin waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto adduunka dacaladeedana waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay kulligeen hurdada aan ka kacno aanu kulligeen u istaagno mideynta ummadda Soomaaliyeed iyo waliba dadkeeni kala haajiray inay isu keeno iyo qarankeeni iyo dadkeeni iyo dalkeeni inaan wax ka dhisno insha Allah ta'ala kareem because ummadina hadii ayagu aynan isu istaaginin ama ayagu aynan maxay tahay wadankooda dhisanin intay soo kacdo qolo kale uma dhisayso umana raadinaysa nabadu waa in wax inaga nagu xiran waa shay ummadda Soomaaliyeed ku xiran dhismaha wadankooda waa shay ummadda Soomaaliyeed ku xiran every single thing waxay sugaysaa ummadda Soomaaliyeed hadii qolo kale meel ku dhisayso ama qolo kale wax ku qabanayso ama qolo kale to ay hagaajinayso wadanka mar hore 28 years ma gaarteen mar hore ayaa la idin qaban lahaa oo idin hagaajin lahaa marka Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa oo aan idin leeyahay mugdiga aan ku jirnay ee long time kan ugu qaatay aan ka soo baxna insha Allah bilmilahi kareem aan try gareyna si aan wadankeena iyo dadkeenaba aan isugu keeni lahayn haddana waxaad ila soo dhaweyn doontaan insha Allah bilmilahi kareem wariye ummadda Soomaaliyeed caan ku ah waliba dhinacaas maxay tahay kilinka shanaad ee ummadeena Soomaaliyeed ay degan tahay walaalayaal waa Maxamed Xasan Xaashi Maxamed Soomaali dad badan baa yaqaana oo shaashada in badan ka daawan jiray adduunka dacaladeeda caawana halkaan ayuu wuxuu ku yahay midnimo program marti asagoo raba inuu midnimada ummadda Soomaaliyeed igala qayb qaato waxaan leeyahay welcome walaalkay Maxamed wariyaheena weyne Soomaaliyeed aad ayaan u soo dhaweynayaa fadlan idinkana ila soo dhaweeyo insha Allah bilmilahi kareem السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وولالكم واتهاي والله كان فليا دتك سيدي شيغان دينع bay yiraahdeen marka saas aan ugu qabanayna maadaama xagga meediyaha aan television-kan I know wax badan badii adiga exactly rageedi baa Jamila markuu horeyso walaal aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan barnaamijkanan midnimada wadajirka iyo isjacaylka ummadda Soomaaliyeed aad igu marti qaaday run ahaantii waan daawanayay waana kugu dhiirigelinayay waana ku faraxsanaa waayo waxa tahay gabadh u istaagtay sidii ummadda Soomaalidu wadajirkeeda iyo isjacaylkeeda iyo midnimadeeda sax aad uga shaqeyn lahayd runtii waxa weeyaan
shakhsiyan adaa isugu dhiirigeliyey maantana waxa weeyaan bulsho badan oo barnaamijkaagan iyo howlaha aad wado waxa weeyaan kugu taageeraya kugu garabsiinaya badan marka inaan anna qayb ka noqdo oo aan kaaga soo qayb galo oo adigu martiqaado sharaf ay tahay in badan baan kaaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan mahad celin ballaaran aan u jeedinayaa bulshada mar walba ku taxan barnaamijkaagan waayo markaan arko bulsho badan oo daawanaysa waxaan u arkaa ummadii inay midnimadii iyo weliba wadajirkii iyo jacaylkii Soomaalidu ay danaynayaan ayna raadinayaan marka runtii mowduucaagan maalin walba qodobka aad ku soo qaadato waa qodob xiiso badan oo ummadana mar walba in ay lagu baraarujiyo oo lagu wada u baahan marka maantana qodobka adiga aad ku soo qaadatay anigana aan martida ku ahay kolley cilmi uma aanan soo fariisan meeshan ummadda aan dheerahay ama ummadda aan u sheegayo waa wax in badan laga hadlayay culimadii baa ka hadashay aqoon-yahankii baa ka hadlay waxa weeyaan caruur iyo ciroolaba way ka hadleen marka dhalinyaradu mar walba waxaa looga baahan yahay inay ka hadlaan wixii hadba mowduuc jira ee ummadooda dhibaatada ragaadaysay sidii waxa weeyaan looga bixi lahaa marka farxad bay tahay inaan barnaamijkaagan mowduucaagan midnimo inaan qayb ka noqdo waxaan oran jiray stuudiyaha Jamiila aad soo aragtid marka inaan stuudiyihii aan soo fariisto bulsho badanna daawanayso waa ii farxad marka waxaan jeclaan lahaa kulley wixii anigu tala ahaan iyo ra'yi ahaan iyo caqli ahaan anigu igaga aadan qodobkaagan maanta aad bulshada u soo bandhigtay in aan anna tala ahaan inaan ku biirsado laakiin cilmi ahaan iyo aqoon ahaan inaan ummadda horteeda la soo hor fariisanin waayo arrin uguba ma aha waa 26 sano iyo 25 sano wax soo socday oo waxa weeyaan dad badan ka hadalkeeda iyo u soo taagnideeda ay iyagoonan midnimadii iyo wadaniyadii iyo jacaylka Soomaalida iyagoon arag ka dhintay baa jira marka inta noolna mar walba waxa looga baahan yahay inay ku dadaalaan sidii ay midnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu dadaali lahaayeen marka kulley maanta stuudiya Jamiilan fadhiya oo war anigu ii diyaarsan iyo warbixin ii diyaarsan ma jiro laakiin sida adigu martiqaaday waxaan jeclaan lahaa anna fikrada iyo talooyinka inaan halkan ku soo bandhigo bulshada ina daawanaysan waxaan ku dhiirigelinayaa oo ku bogaadinayaa sida Jamiila ay mutadawacnimada shakhsiyan ay u sameynayso arrin mushaar lagu siinayo ma aha arrin waxa weeye cid kale ku dhiirigelisay ma aha iyada ismaamushay iyada isku dhiirigelisay marka muwaadinkaas ay wadani walba waxa looga baahan yahay inuu dalkiisa jeclaado markuu dalkiisa jeclaado ayaa ummadda kalena ixtiraamaysa laakiin qofka hadduusan isagu is jeclaanin meesha uu ka soo jeedo uunan jeclaanin cid ixtiraamaysa ma jirto marka gobonimada aad maqlayso waa marka lagu ixtiraamayo gunnimada markaan maqlaysana waa marka waxa weeyaan aad maanta qaxootiga halkaa ku tahay oo cidna ku aabiyeelin marka Jamiila kulley arrimo badan oo dad badan kaga hadleen arrinta gobonimada iyo arrinta qabiilka iyo qabyaaladda ee ummadda Soomaalidu isaga dhaxyacsan tahay kulley dad badan oo qoraa ah dad badan oo abwaana ah waxay ka hadleen farqiga u dhaxeeya qabiilka iyo qabyaaladda iyo gobonimada iyo gunnimada marka gobonimo waxa horta keena waa waxa weeyaan waa markaad ka madax bannaan tahay qabiil waa markaad ka madax bannaan tahay iyo nin jeclaysi markaad ummadaada jeceshahay oo adiguna is jeceshahay waxaad noqonaysaa gob ayaad noqonaysaa markaad is ixtiraam weydo oo qabiilku kula weynaado gumbaad noqonaysaa marka gobonimadii Soomaaliyeed la ogaa heerkay mari jirtay isjacaylka iyo isku duumanida ummadda Soomaaliyeed waayo badan aynu arki jirnay waxa gunta ka dhigay kadib markii qabyaalada la isticmaalay marka abay waxaan jeclaan lahaa maadaama barnaamijkan aad igu casuumtay sharafna ay tahay inaan ummad badan hadda daawanaysa aan la qaybsado anigu Maxamed Xasan baa la yiraahdaa nin Soomaaliyeed baana dadkana waxay igu naanaysaan Maxamed Soomaali meel walba ay joogto wanaageeda iyo jacaylkeeda iyo nabadgelyadeeda ayaan jeclaa qof ka soo Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inuu ummadiisa wanaag ula jeclaado waa diiniyan waxa weey rasuulkii ayna faraya marka
waxaan laba arrimood baan jeclaan lahaa intaanan gobonimada gaarin inaan bilaamiyo inkastoo dadkana daawanaya iyo adiguba aad ka dhareegsan tihiin farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan qabyaalada iyo qabiilku caruurta maanta waa lagu barbaariyaa waxa qabiilka la yidhaahdo kadibna qabyaalada isku bedeshaa marka waxaan jeclaan lahaa bal marka ugu horeysa in aynu isweydiino horta muxuu yahay qabiilku kadibna waxaan u guda dhacayaa qabyaaladana waxay tahay iyo halka laga soo abaabulay dad badanoo qoraa ah iyo dad badanoo abwaano ah qabiilku waxa uu yahay waa ay sheegeen iga raalleada xoogaa waxa weeyaan laydka tirada badan markaan stuudiyaha fadhin jiray layd badan baana lagu shidi jiray marka laydadkii tirada badnaa stuudiyaha jamiila xoogaa ma garanaysaa marka walaal intana daawanaysa iyo jamiila xoogaa waxaan jeclaan lahaa bal inaan wax ka idhaahdo qabiilka muxuu yahay intaanan gobonimada iyo gunnimada maanta lagu jiro aanan ka hadlin qabiilku waxaa lagu tilmaamaa horta inay tahay bulsho waa bulsho amaba koox wadaagta abtirsiiyo waa bulsho wadaagta abtirsiiyo waxayna markaas abtirsiiyahaasi ay isku bedeshaa jilib ama jifo ama qoys kadibna waxay u kala baxdaa reero amaba qoysas waxaa jirta sida caadiyan markii dad walaala ama lagu wiilo walaala markaan fursad kasoo qaado tusaale ahaan ubad bay dhalayaan ee rag ah ubadkaasi waxa weeye caruur ayay sii dhalayaan way sii tarmayaan kadib waxay isku noqonayaan ilma adeer koowaad ilma adeer labaad ilma adeer saddexaad marka intaa la noqdo ayaa waxay marka dadku noqonayaan tolkaasi ayaa waxa uu usii baxayaa jilib iyo qolo iyo qabiil ummaddii markay saa u farcanto marka qabiilka rabbina wuu noo sheegay rasuulkiisina way noo sheegeen wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi adqaakum rabbi wuxuu leeyay waxaan idin abuurnay amaba idinku samaynay qowmiyado iyo qabiilo si aad isugu fahantaan oo abtirsiyihiin uu u noqdo maxamed xasan waa ina xasan waa ina hebelka waa ina hebelka taasi ay tahay tan rabbi uu noo sameeyey kadibna rabbi wuxuu raaciyey uu leeyahay kan ugu waxa weeyaan cabsida badan xag rabbi ayaa ugu waxa weye qiimo badan ee lama oran qabiilaan idin samaynay ee waxa u karaamo badan kiina landheeraha sheegta marka qabiilka horta sidiisaba waa abtirsiyo kasoo askuma dad wada dhashay israacooda ayuu noqonayaa intaa qabiilka laysku yidhaahdaa soomaalida qabiilka way bedeshay oo waxay tidhi anagu qabyaalad baan u isticmaalaynaa marka qabyaaladiibaa sababta in gobonimadii laga tago oo gun la noqdo waxay keentay in qabyaalad la adeegsado haddaba qabyaaladu soomaalidu sidee bay u isticmaashaa hadda tusaale ahaan aynu kasoo qaadno wadamadan aynu joogno hadda anigu intay koobnayd aan joogay wadamadan waxyaalaha aan arko waxaa ka mid a cunsuriyad daahsoon midna waa la qayaxaa markii lagu daaha wax ka qurux badan ma laha laakiin markii lagu qeexo oo lagu tusaalayo oo nacayb madow lagu tuso oo nacayb diiniya lagu tuso cuqdad baa ku gelaysa soomaalidu qabyaaladooda waa qabyaalad cunsuriyad oo qayaxan waxa weeye qofka loogu dan leeyahay taabanaysa oo boog ku noqonaysa qof kula diir ah kula dhaqan ah kula sinji oo kula isir ah markaad ku tilmaanta inuu yahay in uu abtirsiya ahaan ama qola ahaan uu kaa liito waxa uu qofkaasi muxuu noqonayaa cuqdad ayuu ugu dhex nooliyay waddankii uu ku dhashay ma aha caddaan lama joogo reer maraykan lama joogo soomaali buu la joogaa marka maxaa ka dhex dhashay markii ummaddii ay isku noqotay qabiil ama aan idhahda qabyaalad oo reerkaygu uu noqday reer laandheeraha aan aaminay oo kaa reerkiisuna aan aaminay inuu abtirsiyiisi uu yar yahay laangaab uu yahay isirsoociis uu yahay mid aan la aqoonin meesha maxaa ka dhashay in ay gobonimadii burburto oo gunnimo laysugu biishubto qabyaaladii maxay keentay horumaradii aasaasiga laftigeeda ayay burburisay waxbarashadii ayay burburisay caafimaadka ayay burburisay beerihii ummadda waxa weeyaan wada jirka ay u wada aadi jireen ayaa laga wada baaba'ay ummaddeena maanta oo iyada abaarta laynayso
dulmi iyo cadaalad darra ka dilaacday waa waxa ilaahay noo ciqaabay waa ummadii masaakiinta ahayd isrooca qabiilka am loo waxyeelay oo loo dhaawacay qabyaaladu baday ayaa waxay Soomaaliya dhulka Soomaalidu la yiraahdo ama dalka Soomaaliya waxay asiibtay masiibo rabbaaniya oo abaareed oo marnaba ka dulkacayn sababtana maxay tahay waxa weeyaan ummad rabbigooda aaminsan oo midnimada jecel oo Soomaalinimo jecel oo diintooda jecel baa la gun laga dhigay aad iyo aad sax kan gunta ka dhigayna waxba ma dhaamay waa nin la israac la wax way qabiil ahaan is siman markii dhibaatada ka dhalatay dulmigaasi ka dhalatay cadaalad darradaasi ka dhalatay xitaa markaan tusaalahan bay u soo qaadan maanta Soomaaliya maamulada ka jira maamuladii waxa weeyaan haddii ay dhacdaba in qof la hayb sooco xabsi lagu soo oogo amaba xarig loo geysto waxa weeye maxkamadda horay ayaa loo xukumayaa because of cid u danqanaysa qaybtiisii baa ku badnay hortagaysa male oo looga baqayo inay boroomo soo qaataan ma jirto marka maamul xumadiina waxay dhalisay in dadyow la abuse gareeyo marka waxaan anigu oran lahaa qabyaalada Soomaalida ku dhaqanta waa cunsuriyad waliba waa cunsuriyad qayaxan weyn waa cunsuriyad waliba seef wadata waa seef wadata ha seef wadata maxamedow marka dawladda Soomaaliya xilliyadii ay jirtay ummadu waxay ahayd ul iyo diirkeed wax walbana way wadaagi jireen arrimahan qabiilku wuu jiray oo ummadda way abtirsanaysa oo in adeerka in awowgii baa la lahaa laakiin qabyaalad heerka gaarsiisan ee ummadii kala faqooday oo halaaga keentay ma jirin marka Soomaali gobonimo waxa ugu dambeysay burburkii sax waliba iyadoo barqabasho oo xil waxa weeyaan rajo la leeyahay oo wal isbedelay la leeyahay ay gumowday oo caalamkiiba waxay ku noqotay looma ooyaan meel walbo ay taagan yihiin waxa la yiraahdaa waxa weeyaan terrorist pirate waxa weeyaan wax kasto xun ayaa loogu magac daray marka waxa weey gobonimada maanta ummadda ka maqan tahay meel kale aysan ka raadinin walaalkooda ay dhibaataynayaan ay ku dhibaataynayaan ku cunsuriyeenayaan qabiilko haddii ay daayaan oo ay isku gartaan inay yihiin Soomaali kan kalena uu yahay Soomaali oo la dhaqan oo la diin ah waxaan aaminsanahay Soomaaliya cadaalad bay helaysaa Soomaaliya dawlad bay helaysaa Soomaaliya isjacayl iyo wadaniyad iyo midnimadii lagu yaqaanay bay helaysaa laakiin inta ka horeysa ee qabyaaladu ay cirka marayso ee wiilashii lagu ababinayo waxa weey reer hebel waa langaab kaasina waa cadow idin yahay wiilka 20 jir ama 18 jir meeshuu ka gaaro wuxuu bilaabayaa in uu waxa weeyaan cuqdad uu u qaado ama dagaal uu ku hayaba reerka kale sax marka waxaan oran lahaa Soomaalidu gobonnimadeedu waxay horseeday in caalamku ay ku daydaan sababta ay ugu dayanayaan waxay ahayd wada jirka iyo isjacaylka iyo midnimada markii kala faquuqi iyo ay timid cunsuriyadan dahsoon ee qabyaaladu ah ummadina la faquuqay waxay dhalisay in ummadii xaqdaradii galiyeen ka soo daradii cadaalad daradii dulmiga maanta Soomaalidu meel walba abaartaas Ilaahay wuu naga dulqaadi karaa laakiin sababta uu inooga dulqaadi karo waxa weeye markaad walaalka la jeclaato waxa adigu aad aaminsan tahay ee qurux iyo haybad iyo landheernimada aad jecesha hadii walaalka ee aad dulminayso aad la jeclaato dalkan wallahi roobkan uu ku hoori nabadgelyaduna way imaanaysaa gobtii Soomaalida ahayn way soo noqonaysaa laakiin inta ka horeysa ee qabyaaladan nala talax tagtay ee qof kasta aaminsan inuu yahay haliyay keligii ah waxa weeyaan dulmigaasi waxay dhalinaysaa burbur hor leh waxa weeye foolxumo hor leh marka waxa loo baahan yahay abay waxa weeyaan midnimadan barnaamijkan adigu aad wado aniguna maanta aan xoogaa aan iska hadlay waa nin muddo laygama hadalsiin muddana social media anigu ma soo gelinsaan waxa weeyaan meelahan u soo laakiin waxaan jeclaysay wax adigu aad wado sax nin Soomaaliyeed baan ahay kan Soomaaliya ku dhashay ee maanta Soomaaliya jooga waxa laga yaabaa inuu ka danqanay waxa ka dhacay laakiin anigu waan ka danqanay waayo waxa igu weyn Soomaalinimada qofka marka waxa uu yahay uu jeclaado ay ku weynaato
waxa way dalkiisa iyo dadkiisa uu jeclaanaya waa reasonka lagu bixiyo marka anigu Soomaali meel walbo ay joogto markaan arko qurux iyo Soomaali isku duuban ee aan marnaba ku dhex jirin wax la yiraahdo ishays iyo nacayb runtii waan ku farxaa markaan arko dhalinyaro maanta soo baxday ee jaamacadda ugu horeysay ka qalan jibiyay ee dalkaasi la islaam way waxbay u qabanayaan qarax lala beegsado halkii ku dhamaadaan meel baa ay goodo waxa weeye waxaan dhiraa war Soomaali loo mooyaan bay noqotay war Soomaali goormay noqonaysaa goormay ka baxaysaa dulmigan ee iyagu cidna u geysan iyaga isku geysteen because ilaahayna uu ku ciqaabay waxa qaladaysan inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim rabbi horta maba doorinayaba ilaahay horta Soomaalida waxay tiraahdaa taqaan wax kasta xun ilaahay baa iigu talagal ilaahay kuguma talagalin ilaahay xumaan ma jiro ilaahay waxba dhibaato kuma geysan marka adigu is dulmisay ee asaga iska reebtay ee aad ku dayan weyday xitaa dariskaaga horumarada iyo waxa weeyaan cirka ay diyax gacmada ay u dirayaan aad kaga dayan weyday aad eeganaysa kan ku sakeey aad u arkayso inuu yahay kan cadowgaaga ah waxa way meel ma gaaraysa waxaadan ku gaarayn warkan baa kula dhashay warkan baa kula diira warkan baa Soomaaliya isaga haddaadan ixtiraamin cid ku ixtiraamaysa ma jirto marka haddaadan sokeeyahaaga iyo dariskaaga aan ixtiraaminna weligaa meel ma gaaraysa marka waxa weeyaan almuhiim dadka Soomaalidu maanta waxa weeyaan in abaaye Jamiila iyo dad lamida u soo kacaan idinkuna aad ka mid noqotaan hormuud bay u noqonaysaa in badan baa laga hadlay wax walba ma garanaysaa aad marka dadka ina daawanaya kulli waxaan jeclahay dad badan oo daawanaya ila fikira oo waliba igaga sii horeeya waxa aan maanta ka hadlaya oo iyaguna in badan ka hadlo oo meel walba istaagan kaga hadla baan aaminsanahay wallahi wax kale aan oran kara maanta abaay ma jirto Soomaali ilaahay ka dulqaado Allah ka dulqaado oo dhibta ayagu isu geysteen waa in ay maxay haytay inkastoo aan gabayga ku wanaagsanayn ma sha Allah timcade aniga ma qorin gabyana ma yihi laba eray xitaa isku ma keenay karo laakiin sultan timcade xilliga uu ka hadlayay dhibaatada qabyaaladu ay leedahay mid adduunyo iyo mid aakhiraba xilli waxa weeyaan calanka intii la qaatay Soomaalinimo iyo qiiro iyo wadaniyad loo kacay bay ahayd laakiin uu ka sii afayftay uu ka sii hadlay dhibaatada ay yeelan doonto marka dhowr eray baan ka soo qaatay abwaanka uu leeyahay inkastoo sidii abwaanida aanan ugu luqayn karin haddana bal si u mandhahaya wuxuu leeyahay goortay iswada dooxatay baadaad u soo galaye ubadkiina waa daadisee waana dubateene dubuuxdiisa waad wada cunteen duhur dharaareede darajada ilaahay ninkii doonayaa hele ninka duday dastuurkiyo waxyiga daa'in ka carowye ama diinta ka carowye dugsi ma leh qabyaaladii waxay dimisa mooyaane haddaynaan xumaanta iyo weliba dilka daynin kala qaadka waa jifajifaynta iyo qabyaaladda iyo reeraynta dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaahe dabarkeedu waa jaahilnimo iyo dogobka naareede dugsi ma leh qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waxa uu leeyahay dabarkeedu waa jahannamo iyo dogobka naareed xaq rabbina wax wanaaga kama laha hadda adduunkii waad u jeedaa maxamedow adduunkii baaba cadaabtii horta noogu soo baxday soo moogid aad iyo Soomaali waxa ku dhacaya badihii bay ku dhamaadeen barrigii bay ku dhamaadeen adduunyadii bay meel kasta oo adduunyada ay tagaan waxay ka yiin fardheeraatay sharaf male respect male waxay noqdeen wax kasta oo xun xaawa iska leh waxa adigu isku geysato ma noqonaysaa warun Soomaalidu iyaga meesha isdhigay sax waxa weeyaan dumarkii way daaleen say u sacabtumayeen uma shaxaradayeen baa horta waxa weeyaan waqtiga kaga dhamaaday wanaaga wajicin maalin walba madax sheeganaya soo baxay oo danihiisa gaarka u wata sax haddii u soo baxo nin daacad ah oo wanaaga iyo midnimada jecel kuwa badan oo ku didaya
baa jira oo aaminsan inuusan la reer ahayn maya not only that because maadaama wadankii muddo badan uu maxamedow burbursanaa kuwaasi waa kuwa xataa iska raba noloshaan maxay tahay wadankan ama adduunkan aan qofna maamuleyn ilaa wadan dhan oo barwaaqaysan oo qofna maamuleyn marka waxay iska rabaan dadka qaarkood inay ku jiraan wadankaas iska baabaa amaba dee musuq maasuqa marka dowladba ma rabaan ilaa dowladii dhaqankii dowladda waa iloobi ma waxa weeyaan da'da maanta soo baxday dhammaantood waxa weeye waa intii burburka kadib dhalatay ee maanta dalkii uu ka nasan laayahay iyaguna sababta ma laha صح anigu gurigay hooyada iyo aabahay wixii lagaga soo ababiyay ayaan ku dhaqmaya صح waxay ku barbaareen waxa weeyaan dhibaato iyo qabyaalad iyo dagaal ishoodu waxay maqlayso waa dhibaato iyo burbur iyo xabad iyo naxdin ifriday ah guriga waxay ka maqlayaan waa is hays iyo dhibaato iyo buuq ilmihii wuxuu ku ababayaa waa dhibaato iska celi waa iska celi iyo qaado wax kastoo laga faanayay ama ay maanta Soomaalida ku faantaa wax kastoo laga faanayay ay maanta Soomaalida ku faantaa marka waa qayb kamid ah maxaa gobonimada inaga kaxeeyay oo guni naga dhigay marka anigu waxaan oran lahaa war ummadan Soomaalidu arrimaha teeda kale aan ka yaab abay waxa kamid ah Soomaalidu qalbigeedii baa adkaaday waxa weeyaan wax laga qiiroodo maanta waxa laga yaabaa qof meel soo istaagaya wuxuu ka hadlayaa dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed maanta haysata ninkaas si qalbi u hadlayo isagoo jircoon iyo qiiroonaya dad baa sacab tumaya mashxaradaya war qarax dad ku baaba'ay iyo mashxarad iyo sacab xagee iskaga timaada meesha ma aroos ba Soomaalidu xilligan farxadu way ka dhamaatay way wax lagu farxaa ma maqlayaan ma balahaba dadka maalba dhimanaya dadkeena maalba lagu baaba'aya anigu saxaafadin badan ma ku dhex jiray dadka saxaafadda Soomaalida waxay u maqlaan dib kasta oo Soomaaliya maanta ka dhaca way ku farxayaan waxay leeyihiin war maanta arrin cajiib ah ka socoto maxaad maqashay warbixin fiican baa la sheegay oo maanta qarax waa dhacayo haddii la yiraahdo maanta dawladda ceel bay xariga ka jartay ama arday baa qalin jibisay war waxba maanta warbaahintu maanta waxa ma sheegin kuwa qalin jibiyay lahaayeen waxba qalin jibiyay baa xagee laga qalin jibiyay meel laga qalin jibiyay lagu farxo meel laga qalin jibiyay meel xumaan waa la raadinaya exactly Allahu akbar Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed marka waxa weeyaan war waxa wanaagsan ku farxa waxa dhibaatada ee xun ee dhibaatada ummadda loo geysanayo kanax laakiin haddii qiiro laga hadlayo aad u soo cabatumto qalbigaagii baa madoobaaday si qalbigaagu uu soo kobco ee aad u noqoto wadani kuma noqda waa qofka isaga isku faana waa faanida waa maxay war anigu Soomaali baana ciidiisa jecel Soomaalinimada waa inaan ku faanaa oo dhulka waa inaan ku faanaa haddaan adiga isku faanin eg waxa jira haddii shakhsiyan adigu aadan isku ixtiraamin if you don't respect yourself exactly nobody else gonna respect you صح qofku ixtiraamaya ma jiro qofku ixtiraamaya ma jiro hadda haddii eeg for example haddii lagugu celiyo maanta dhan lagu yiraahdo gun baatay ood accept garayso inaad gun tahay mar walba waxaad noqonaysa qof buka oo markii gun la yiraahdo waad xanuunsanaysaa war dhibaatada iyo wax xun ee liita lagugu sheegay ha accept garayna ha qaadan sidaas dadka malaha ma noo arkayaan caadi ha yeelin waxa liita ha yeelin waxa aan quruxda badnayn ka fogo صح markaasaad gob noqonaysaa صح laakiin wallahi inta aadan adigu is ixtiraamayn ee kan kula dhashay aadan ixtiraamayn wax ku ixtiraamay ma jiraan aadan mid u arkin ummadda Soomaaliyeed ee Ilaahay kula abuuray ee walaalahaaga ah ee kulligood kula midka ah kula kalarka ah kula dhaqanka ah kula maxay haytay everything ah waa wax kasta waxay ka duwan waxaad ka duwan tahay kuwaas ma jiraan isku mid baa tihiin hal tusaalaan kuu sheegaya ummadda Soomaalidu alaana halka ay ka gaareen waxa weeyaan qabyaalada صح la runta in isku sheegayna Ilaahay aynu ka baqno oo waxaanu jecelahay inaan ummadeeda ay horumar gaadho صح anigu Jamila nin Soomaaliyeed baana wallahi Soomaalinimadu waan ku faana صح hada calanka Soomaaliya waa calan aan aad u ixtiraamo anigu ahaan
haddii la yidhahdo deegaankeed ka soo jeeda ama ku dhalatay ma aha deegaanku inaad qabyaalad ku sheeganayso ma aha inaad nacayb ku sheeganayso anigu meel kililka la yidhahdaa ka imid sax waan wada ognahay halkaasaan waxa weeyaan anigu ducayn jira ummadda soomaaliyeed ku kasta oo soomaalida deegaanka deganna soomaalidu wanaagii horumar bay la jecel yihiin qof ka naxaya waxa weeyaan horumar soomaaliya gaadhi ma jirto laakiin wax kastoo idinku aad samaysataan ee horumar wallahi waan idinku riyaaqna waan ku farxana waan idinku bogaadinaa calankan inaad dhulka ka ilaalisaan isku daya oo ka qaadaan war kacdoon dhalinyaro sameeya adduunka dhalinyarada wax samayseen meesha waddankeena ka marka kacdoonka dhalinyarada samaynaysaan maaha isdila maaha ciidiini jeclaada war wax barta oo adduunka maanta eeg maraykan baad joogtaan intiina badan adduunka meesha igu yaabka badnayd intaan adduun soo maray maraykan bay noqotay sababta u noqotay maxay tahay maraykanku la yaabka igu dhaliyo jamiila waxaan islahaa maraykanku waa wadan caalamka dadka meelaha markay la joogaan hebel maraykanku joogaa markii la yidhaha qofkas wuxuu leeyahay waa maraykanka qofkas waxa uu ku tuhmayaa wadan ilbax ah horumaray dhinac walba ka horumaray dhaqaalaha ka horumaray awoodda ka horumaray maskaxiyan u horumaray marka qofka wadanka ku nool inuu sidooda noqdo Soomaa oo isdhiso exactly war meelaan booqday ilaahay baan ku dhaartay rag baa la kala hayaa oo fadhi ku dir rag baa la kala hayaa jamiila wallahi billahi tallah anagu reebela waxa weeyaan anagu hadan hebel ka laana ilaahay baan ku dhaartay intaasan ka jaraya miyadi taqaana waa xaga war yaa kuu og sheekadan adigu aad haysid yaaba kuu og adigu meesha cidlada ka dagaalamaysid war dantaada maad raacatid haddaadan ummadda Soomaalidu wanaageeda aadan ka talinayn oo wax wanaag aad u sheegin war naftaada ilaasho maraykan baad joogta wax ka baro oo wax ka fahan oo horumar gaad si aad waddankaaga u caawiso waddankan 10 kalaamiyo soo isku maraya isaga isma keenin idea ka qaado ummad baa keentay fikrad ka qaado Donald Trump waddankan laga doortay nin cadaan Donald Trump sheegay ma jiro qof ka saas u socdaayo shaqadiisa ku socda farmaajo la magacaab maxaa farmaajo hadii la magacaab jas oo hambaliyo danaha ka raaco waddankaaga u tali laakiin waxa weeyaan tan nooma cuntoonto waxa weeyaan qabiilkaygu waxa la si xilo wasal war you don't need inaad xitaa in yar lagu siiyo wixii meesha timaada war ku taageer oo ilaahay ugu bar inuu waddankaasi istaago oo nabad noqdo laakiin war adigu jifadaada maxaa wax ugu daydaysaa war Soomaali oo dhan baa wallahi jifa idinkoo dhan baa one tribe ah marka maxaad clan iyo sub clan iyo balaayo jifa idinku wataba idink anigu hadda halkaan joogaa Soomaali baana qof ku yaqaana meel kale inaad ka wherever you adigu ka timaado Soomaali baata xitaa Soomaali intaan ka tagay markii midabkiisa or madow baata anigu Soomaalida kale ma aaminsan inay madow yihiin markaan magaalada ma joogin mid Afrikaan black American ay soo maray baa lagu leeyahay war adigu maxaa tahay war adigu is ixtiraam adigu waxa tahay Soomaali xataa umada kale resist ku yihiin Allah wallahi the biggest racist in the world ayagu inay kaliya resist isku yihiin wallahi umada kale resist ku yihiin anu waxaan ku yiri war idinku markaad tirahdaan black man yihiin maxaa tihiin Soomaali xaga ka timid macarabaatihiin abaya Mareykanka cunsuriyad kama jirto wallahi xaqiiqadan idin sheegaya Mareykanka cunsuriyad kama jirto Soomaali wax ka resist cunsuriyada ka jirta war waa mid dahsoon oo aan qayaxnayn war ninka cad indhaha buluuga leh intuu kugu soo dhaco kooran war wax iyo madowga wadada nooga lex kooran maayo laakiin marka meesha soo istaago oo ina jaamac samatar aan oo hooyada cambar geedi ay tahay oo ninka Soomaaliyeed aan gabarkaaga ma soo fariisan karo waxa weeye xitaa isku Google ma fariisan karno adigu aaminsan inaad iga laandheeraysan tahay goormad marka sideed gob ku noqonaysaa adiga gun iska dhig war ilaahay gun kaama dhigana gunnimada ka bax Soomaaliyeed war Soomaaliyeed calankaas wallahi alcadiim idinku waxba kama dareemaysa isaga ooyaya war iqaaday buu idin leeyahay war waad aasteen iqaaday wuu iska soo baxaya ma jirto wax wadani Soomaali la yiraahdo ma jiro war wadaniintii hore markii calan ay arkaan ama markii intuu dibadaha ka yimaado dhulka u yimaado wuu iska ooyaya wuu ku qanacsan yahay laakiin anigu maanta waxa la iga celcelinaya kan arigiisan dhibsanaya halkaan oo soo cararaya halkaan markaan imaadana waxa weeyaan magaca muhiim ma aha meesha aad ka soo toosayso
quruxda ay leedahay iyo gaariga aad wadato quruxda uu leeyahay never waxba ma- weligaa ma dareemaysid No. ilaa aad gurigaaga ku dhex wadatid Meesha aad leedahay. dadka Soomaaliya jooga ama dadka Soomaalida weyn ee meel walba ay joogaan maan anigu inaan iska sii hadlo ma jecli murtada ay iga dhamaato kolley cilmi kuma hadlayn caqli badan oo igu jirana kama hadlayn laakiin tala iga tahay qiira hadda hadal siinaysa waan kuu jeedaa wallahi wixii aan kugu ogaa maanta adigu aad lahayd ba anigu igu sii duxayaba waad igu sii daaratay walaalayaal ilaahay baa idinku dhaarshay intiina Soomaaliya joogta war dhulka ka kaca iska roga qabyaaladii qashinka war waxaad uga bixi kartaan dulmigan idin haysta war walaalka wax u ogolow walaalka goormad wax u ogolaataa markaad aaminta inuu kula diir yahay kula dhashay laakiin inta aad ku hayso waxa weeyaan waa langaabiyo nama geeyaan iyo wiilka maanta la xiro ee reeraha la hayb sooco markii la xiro cadaalad darrada lagu samaynayo waxaasoo dhan gurigiina hoosteeda taala ee dilka degdega lagu samaynayo wallaahi billaahi tallaahi Soomaalidu meel ma gaarayso cilada kaliya maanta idin haysato war quruxda Ilaahay siiyay war Mareykanka meel badan baan ka marayo weli isheedu wax qurux badan kuma arag ana u jigjiga ka tagay ba waxaan tagay Garowe waan tagay Hargeysaan tagay Boosaasan tagay dhul Soomaaliyeed intiisa badan waan tagay quruxda iyo badda iyo wabiga iyo adduunka nimcada meesha taala waad yaabaysaa halka arrin aan inteeda kala rabo inaan ka hadlo waxay tahay abaayo Soomaalidu dhulkii Ilaahay bay kala yeelatay sax dhulkii Ilaahay bay kala yeelatay Soomaalidu waxay tiraahdaa ubadku sidiisaba ubadku waalidka ma kala jecla iyaga iskala jeclaysiiya war dhulkan idinma kala laha ee ha kala yeelanina markaad kala yeelateen ayaa dhibaato idinkugu horeysay war dhulka horta ilaah baa leh adigu maadan samaysan adiguna ilaah baa ku samaystay inta aad kaga nooshay quruxsoo ku noolow dhulka Soomaaliya waa wada desert buu noqday geedii baa laga dhamay waa la xaalafiyay maanta meesha baaba'san hadaan iraado xogaaba ilaahay suukayso aadiyad bal ummadda aad uga faa'iideyso dabaq yaro aad ka sameeysid ummad maalgelin aad u sameeyso dhalinyaro ku shaqeysta hal la helo qori baa la iga saaray hadaan la idlinba war dhulka awoogiy baa iska lahay xaqii adoo reer hebel meesha u timid baa leeyahay war halkaana waxa la maraya halka hadaad dhisanaysid maalgeliya adoo ka yimid fasalkeeda ayaad meel walba ka nooshaa marka baay waxa weeyaan hawsha aad ku jirto Allah kula garab galo amiin waa dadaaleysa ummadda wanaaga jacayl ee mar walba ummadda Soomaaliyeed ka hadlana wanaageeda Allah idin la jiro oo ummadiina u danqado oo waxa weey wanaageeda ka shaqeeya marka way la talax tagtay waxaan ku hadlay xitaa garan maayo ma sha Allah aad baan Soomaaliyeed wixii aan khaldayna maya waad qiirootay muddo badan baan warar badan intaan saa u soo qortay wax ii qoran ma jiraan abaayo un baa waxa uu yacsuntay waan uga mahadcelinay waan iska imid waxaan ummadda Soomaaliyeed wixii tala iyo afka ka soo baxo ma dhahaysa waa saxna waa inta wax loo baahay hadii waxa iga soo baxeen oo khalad oo ummadda Soomaaliyeed waad garanaysaa si hadaad u tiraasi kala u dhiganayaan marka ilma adeer hadaan si wax u yiri oo si kala u qaadateen hal iga raali ahaado laakiin wanaag baan idin la jeclay Soomaaliyeed war calanka dhulka ka qaado احترام وين بيني كم ذي احترامه مركز احترام تنبا يوحوا إلهي ندي احترامه يعني احترامي أدونك أنا نكون احترامي يعني آدي محمد صومالي وآدي بنكون جمهد علنيا ولا الآدي بنكون جمهد علنيا شرفت بدل يعني قال سوق قاعدة مني بروجرام إن شاء الله بالله الله كريمنا وناجي بدنا نفرطي واحد بدن باك قاعدة دورنا واللي بعده experience بدن له وضمك على كسوق كري من أصل وطن كني وعدد كني لكن وطن أهان أكل دوان هاي marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan isku duumnida ummadda Soomaaliyeed midnimada ummadda Soomaaliyeed inaad ku dadaashaan Allah idinku duwo wadankeeni 28 sano ummad aan wadan kale la dagaalamaynin oo ayagu World War II isku riday oo aan qolo kale la dagaalamaynin adduunka laakiin dadkoodii iyo gurigoodii gubaya inta tarqay gaas qaateen gurigoodii oo lolinayo innaga ma adduunka qolo kale laguma sheeginin adduunka baa naga yaqsooday adduunka baa nala yaabay adduunka baa waxay noo qoreen zero inaan nahay nothing
waxba inaanan ahayn xoola xayawaan ah oo kuwa maxay tahay la listo xoolaha waxbaaba laga dheefaa caana laga listaa Soomaali maxamed ha iyo hilib laga dhigtaa ma sha Allah ha waxa ayga si koox xataa la rabaysto waad aragtay guriga wardeynaya anagu qolaan waxba laga faa'iidin baanahay marka wixii hore aan ku jirnay Soomaali maxamed waa inaan ka baxnaa Allah subhanahu wa ta'ala ana hayna garansiyo waxaan leeyahay Soomaali ha israacdo intiina wax soo qorqortay qoraalkiini أدبا دي سلامي من معقيد دوك سلامي ولا شيء معان أدبا كو سلامينا Soomaalidu ayadu ha isku tashato Idris aad baa u maasantahay Soomaalidu ayadu ha isku tashato walaalayaal qabiil qaran ma noqdo gobonnimana waa qaran qabiilna qaran ma noqdo marka hal u dadaalo sidii loo heli lahaa ummad Soomaaliyeed oo hal dhaqan leh oo hal diin leh oo hal af leh sida u noqon lahayd mid oo wadankooda ay u daba qaban lahaayeen insha Allah billahi kariim سلام قالي ولكن في الصومالي ثانك يو سمسم عمر أدبكم سلام يا سمسم عمر ما شاء الله والله أدبكم سلام هنا إن شاء الله إدريسو من نمط ونا من صوت على قبل أبونا سقطة إلهي وحكي رجينا إن الصومالي بنجارت مدير إمدوين إن كان لو وقعتان إلهي كرجينا الصومالي أي نقطة مد وأي هالمرة وده هالجمال سي وضع كود مرة لبعض كهلان أي ضيعين aad baan idin salaamaya dhamaantiin qoraalkiina aad buu u badan yahay walaalayaal aad baan idin salaamaya hadii ilaahay raana mid baan kaga soo jawaabaya insha Allah way midoobaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha mideeyo ما سنتين دمانتين ولا ريال ما سجدينا وترى بديهين سؤال لكن ما جيدو سلام سر كل جن وان سلامنا ولا ريال كل جن وحنا قلنا السلام عليكم كل جن وحنا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إن شاء الله وحن إلهي كبرينا مركلة إنا كلنا نهودا إنه كهل دورنا مرلبات يمر صدحات يمر بقولات برنامج كنا من نمو walaalkay maxamed Soomaali ayaa xiri doona insha Allah bilmilahi kariim asaga ayaan ku wareejinaya wariyaheena ummadda Soomaaliyeed kaliya ma ahay waa wariyihii ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ilaa Kenya ilaa Ethiopia ilaa iyo dibadaha marka kilinku ka soo bilaabay laakiin waxaan u maleynayaa adduunka dhan buu mari doona marka walaalkay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wariyaheena waxaan leeyahay soo dhawow to United States at the same time aad baad ugu mahadsantahay sadcaawa programka midnimo igala soo qayb gashay جميلة أد بدو ما صنت ولا وحكى لو ما صون نقن وحويان قف كستا أو صوماليا وحا ومدن يهي دad kort Soomaalidu waa dad isjecel
laakiin waxa way dhibaatada kaliya haysata waxa way inta yarta ee waxa weeyaan xurgufta qabyaaladeeda dalka Soomaalidu midnimadiisa iyo nabadiisa uu ku soo noqonaya laakiin waa marka idinku is jeclaataan hadii Ilaahay yiraahdo marka anigu shakhsiyan kan Maxamed ahaan anigu de waxa weeyaan dawladda deegaanka Soomaalida ka soo jeedo wanaag baan idin la jeclay waana aaminsanahay inta Soomaalida deegaanka degan wanaag baan la jeceshay horumar iyo nabadgeliyo idinka is jeclaada oo is ixtiraama oo nabadgelyadiina waxa way ka shaqeystaa waxa laga yaabaa abaaysan anigu aaminsan hadda anoo Soomaaliya haddaan iraado dawladda deegaanka Soomaalida ayaan ka soo jeedaa wax kale iyo hawlo kale iyo sheekooyin kale inay galaan laakiin muhiim ma ah taasi war adigu dib isugu noqo marka adigu gurigaaga hagaajiso ka kale ka hadal laakiin waxa weey walaalayaal waxaan idinka codsanayaa dantiina ka shaqeeya midnimadiina ka shaqeeya kiina walaalkiina dhibaatada aad ku haysan ka daaya qabiilku ilaah baa naga sameeyay waa inaan isku abtirsano oo aan is garanno oo isku habsoocono laakiin qabyaalad iska daaya qabyaaladan ina gumeynaysa iska daaya marka ummadan abaartu haleeshay aan waxba loo qaban karin tii rabbi mooyaan idinku aad ku sababteena ka daaya xukun kasto iyo madaxweyne kasto iyo mas'uul kasto oo laydin magacaabaan iska taageera waayo dantiina ku jirta waxba idinku inaad ku mashquushaan ma haybtiisa inaad socotaan ma inaad sodborsi iyo waxa weeye xil idin ka maqan ka hadashaan idin muhiim ah waayo tan maanta idin haysata ayaa waxay tahay waa nabadgeliyo daro haddaan nabadgeliyo jirin nolol ma jiraysaba ubadka xaggee wax ka baranayaan caafimaadka xaggee laga helayaa beerihii sidee loo falanayaa waxyaalahan resource-ga ilaahay dalka Soomaaliya dhex dhigay sidee baa looga faa'iideysan karaa intiiba lagama faa'iideysan karo waxa way si ummadaasi ay uga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ilaahay dalkiina dhigay walaalayaal idinku is ixtiraama oo is jeclaada oo wanaagina ka taliya iska daaya qabiilka iyo qabyaalada iyo qofka aad quursanaysaan aad hoos u dhigaysaan maanta in la idinkaga faa'iideyso dad su'aal baan waxaan ka arkay walaalo soo qoray uu leeyahay dad badan oo qurba joog ah ayaa waxa weeyaan wadankii ka wada faa'iideysanaya dawladii wada noqday adiga sababta aad u noqon weyday waxa weeye maxay tahay adiga maxaa ku diiday inaad mas'uul ka noqoto dalka Soomaaliyeed aad hormuud u noqoto oo laga dhax arko hawlo kale iyo dhibaato kale iyo waxyaalo kale aad ku mashquushay marka si waxaas oo dhan looga baxo kan qurba jooga waa nin Soomaaliyeed weeye meel kasta jooga kan dalka jooga waa qof Soomaaliyeed weeye labadiinaba Soomaali baatiin waad u simantihiin laakiin muhiimadda waxay tahay war dalka wada jeclaada oo is jeclaada marka is jeclaataan ma dalkuna idin deeqaya Soomaalida hadda waxa weeyaan inteeda dhan hadii la isku dardaro 50 milyan ma gaarayso dhulka dalka Soomaaliya uu leeyahayna waxa weeyaan dhowr boqol bal oo milyan baa loogu talagalay haddaad ka soo baxdo xamar aad Hargeysa u socoto ama xagga iyo bari aad u socoto markaad 100 kilomitir ama 200 markaad 200 abay socotid ama 100 kilomitir aad socotid ayaa magaalo tuulo yar kugu horeysa alaana waxa ka maqan horumaradii asaasiga oo dhan wadankii layrar ma laha biyo gelin ma laha wadooyin ma laha marka ummadda maxay isugu tagtay magaalooyinkii waa la soo tagay magaalooyinkana dhibteedii baa socota qaraxi baa socda dilkii qorshaysnaa baa socda barakici baa socda marka waxaasi oo dhan idinka ka horteegi kara dhalinyarada waxbay soo wada baratay maanta dhammaan waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed aqoon-yahan bay wada noqdeen meel kasta ay joogaan laakiin aqoontoodii waxa weeyaan iyaguna way ka qadeen cadaalad darrana way qadsiitay cadaalad darrada maamul darrada bay maanta Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan waa dhalinyarada inay soo hayaamaan baa keenaysa oo qurbaha soo galaan marka cadaaladda maamulada ha ka taliyaan oo ilmaha ka taliya war dalkan dadka iska laha wax ka siiya idinkuna hareeraysanina marka waxaan idinkaga tegayaa midnimo waxaan idinkaga tegayaa wadajir waxaan idinkaga tegayaa isjacayl waxaan idinkaga tegayaa gobonimo gudnimo ka carra aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum ما شاء الله دمانتين آد بقوا مهسنتين ولا ليال وحن كجتجينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبروجرام كي من نمو برشو إن شاء الله إن وقت كلا أوحي صالح دي إلهي راهو السلام عليكم دمانتين
aad baan idinku mahad celinaya dhammaantiin intiina caawa nagala soo qayb gashay